maansayahanadii waaweynaa ee kolba colkii ay la duulaan tixaha maaweelada iyo dhaawashada ugu roonaan jiray dhowrka jeerna hasha gabay maansadooda ku xusay waxaa ka mid ahaa darwiishkii ahaa ee Ismaaciil Mira la oran jiray. Intaas markaan waa hubaa intiina taariikhda iyo suugaanta daraawiisheed wax kala socotay inaad istiraahdeen rag allow waa kan Ismaaciil soo hormariyay ma wuxuu u jeedaa goobtii ruuga ee 1913kii daraawiishtii uu ammaanduuraha u ahaa ay kaga guulaysteen ciidankii gumaysiga Ingiriiska goobtii ay koofil ku makali jireen. In 1913, its commander, Captain Richard Corfield, disobeys orders and leads an attack against the dervishes. Corfield is killed, his forces annihilated. Sayyid Muhammad commemorated the dervish victory with a poem. You have died, Corfield, and are no longer in this world. A merciless journey was your portion. In that other world, tell your companions how God tried you. And say how the dervishes were like thunderbolts of a storm, rumbling and roaring. ay iyagu u adkaadeen waan hubaa inaad istiraahdeen toloma wuxuu u jeedaa markuu tareex ku soo noqday gabaygii xog waranka ahaa ee Sayid Maxamed uu Ismaaciil ka hortirin jiray kana kici jiray annagoo tareexnaal jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi toro ku hansaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay tabantaabiyay ducada noo tuumi gabaygii uu ku sheegi jiray 11kii haraade uu isagu geeraa ka helay hasha gabayna intuu ku xuso uu ku oran jiray 10 gool tabaadiga dhigay iyo 10 unugooyo iyo 10 tiftii hore rimay oo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer towlano tikhilka qaarmooda iyo 10 irmaano aniga la igu taageeray iyo taan eryoon jiray markay 10 tahee joog been laguma tooqiyo afaan taabad noqonayne intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu taraaday ujeedadaydu ma aha inaan idinku jalbeebiyo gabayga caanka ee aan hubo inay Soomaali badani wax ka taqaan kanaan maanta idin haya waa sida taclaydaas mid aan caan u ahayn lana xilli ahayn asii aan ka dhicin lagu dheerarin karo hilaada waa bartamihii 1920 qarnigii 20aad ololihii dagaal ee Ingiriisku uu daraawiish ku xasuuqay weli lagama biskuun mirashi iyo jiidali bixin iyo wow dooxada saraareed taleex dooxada qowro boocame iyo dhammaan dhulkii ay qalcadaha ku lahaan jireen ayay meydadkoodii iyo madaxyadoodii oo qalalay wada daadsan yihiin gumaadkaas wixii ku baxay kuma baxee wixii ka soo doogay weli dhaawacoodii iyo dhiiggoodii baa tafiq leh maxoolahoodiiba waxay u qaybsameen waxay ciidamadii gumaysigu boobeen qablinkii dayuuradaha wax ka baynuunay iyo inta ceelashii laga sumeeyey wax tarab u leeday si kale kuma garatide maantaa ninkii rag ahi wuxuu ahaa qoyskiisii wixii ka haray kii la baxsaday oo iyaga oo weli nafi ku jirto meel uun ku og Ismaaciil Mira oo tan iyo maalintuu garaadsaday aan daraawiish dhinacna u dhaafin ayaa ka mid ahaa dadkii aan gumaadkaas ku bixina ka noolaaday isaga oo aan neef adduunyo lagu ogayn xabsiga berberana laga soo daayey ayuu ku soo dhexdhacay qoladii uu ka dhashay oo muddo dhowr iyo 20 sano ah aanu ku xeer iyo xeratoona ahayn gabyaa magac dheer buu ahaaye waa loo xoologooyey neef irmaan oo carruurta u maaro ayaa lihi iyo maal labadaba loo siiyey taasise uma noqon deeq intuu isku halleeyo uu reer ku dhaqan karo soo kolka inuu xoogsadaa lama gudboonaan ganacsi iyo dukaamo wax lagu gado beero la fasho dhoof dabadeed iyo carro edeg alaab laga soo rogo intaasba Soomaalidii uu Ismaaciil la xilliga ahaa aqoon badan uma lahayn sidaa darteedna xoogsiga keliya ee ay taqiinay wuxuu ahaa dhaca geela oo waayaabe aan bulshadu ceeb iyo xaaraantoona u arki jirin si kastaba ha ahaatee Ismaaciil duulaan buu qalqaalay hadba wuxuu tiriyo gabayo uu farabarnaantiisa kaga calaacalayo wuxuu markii dambe isla helay col aan isagu ammaanduurihiisa ahayn uu gabyaagiisa yahay baad iyo biyo wixii saad ay heli kareen intay awrta ku rarteen ayay galbeed afka saareen agagaarka ceelka Caynabo ayay ka duuleen dhowr toddobaad kadib ayay isa sii taageen halkii geerasha loogu baytiyey mase waa cilla ciirsila
show inta laga digniin helay baa laga farxaday geelashiina laga qaxiyey kolba nin socota ah waxay inta qabtaan waraystaanba bishii ay duuleen teediahan baa u bilatay iyaga oo tuludna allaha ka dhige aan neef qurina u soo gacan gelin anficii ay wateen baa ka dhammaaday markaas bay midhihii geedaha caloosha ku aamusiiyeen maalmo kadibna intay haamihii iyo heeryadiiba ka tuureen bay awrtii u rarayd birtii kala maarmi waayeen fiiq meesha la yidhaahdo iyaga oo aad ugu rafaadsan ayuu colkii ismaaciil ka duraantay inuu tiriyo gabaydhaawad uu eebba kaga baryaayo geela ay doonayaan inuu gacantooda ku soo rido iyaga oo u ballanqaaday haddii wax la helo in hasha gabay uu isagu qaadan doono maanseyahanada kale ee colka la socdaana aanay kula murmi doonin maalintaas buu ismaaciil mariyey gabay qurux badan oo si daawashadiisa looga aqbalo uu ku faahfaahiyey hawkarkii ay soo mareen iyo sida ay ugu adag tahay iyaga oo faramaran inay cayn ku noqdaan intaan haddaba ararta iska dhaafo aan dulucda tixda qayb idinkaga mariyo wuxuu yidhi gahaylkii wardheer iyo hashii gudurka loo quutay jibaaxeeda geediga hashaan gila ka soo raacay hashaan guricaskeedii tirshay ee gama la ii diiday ganuunkeeda xoor ka leh hashay gocatay laabtaydu hashaan uurka uga soo gingimay 10 geed qaaqle gob caddaysa iyo dheen hashaan guranayee xaabay wax kastaba aan gooye hashaan labada goos daashay gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay gurgurshaaga awrkaa hashii galowda loo taabtay goradhigaha haamaha hashaan garangarshee xooray raggii wada gamuuraa hashuu gorongolee dhuubtay hashii kabaha gaarkooda sare dhaguxu googooyey guntigeeda maradii hashuu igu garooroobay guuriya boqoraba hashuu galowgu eedaamay saarada gabowgaa hashaan geli dhow moodaayey gorofkeedu marayey hashii laga gabbaaraayey galbeedii hashii loola kacay adari guudkeeda gurigii amxaarada hashii garagashee dhaaftay faalkii gallayd iyo hashuu mara ka gaafnaaday iyadoo hilaac garac yidhi oy garowa soo raacday iyadoo daruuraha gabdhamay bira ku soo guurtay ragga gobolkii wuxuu moodayaa inaan la gaarayne garaadaysadnoo layska daa gaf iyo faankiiya inay taladu kugu goonni tahay gararkas gaabkiiyo guulow allow waa fogaa gurigii caymeede oo kama goyoon kara colkuye gacanta noo buuxi buu yidhi halkaa markuu maraayo ayuu colka xusuusanayaa ballanqaadkoodii hasha gabay ku saabsanaa inay ilaaliyaan markaas buu tixdii ku soo gunaanaday adinkuna halgeeraarshihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacala isiiya dhegaystayaal soomaalida inteeda maansada jeceli siday la socoto ismaaciil mira waa gabayaagii darwiishkana ahaa ee sayid maxamed iyo halgankiisiiba markii la xusuusto isagana lala xusuusto wuxuu ka mid ahaa dagaalyahanadii geesinimada ku tilmaannaa dulucda dagaalkii daraawiisheed raggii aaminay ee weedha hoggaamiyaha iyo wuxuu u xusul duubayaaba ay la hagaagsanayeen markii aanu col duulinayn wuxuu madax u ahaan jiray koox wardoonka lagu jaaday oo dhaqdhaqaaqa ciidanka gumaysiga indhaha ku jirtay kolba taladii uu maagan yahay dhab u soo ogaan jirtay dabadeedna iyada oo tifaftiran wadaadka u soo tabin jirtay waxay ahayd hawl dhib badan asii guulihii badnaa ee daraawiish u soo hoyday iyada lagu gaaray jabkii isdabajoogga ahaa ee ciidamadii ingiriiskana sabab horaad u ahayd col iyo duulaan wuxuu ku jiro oo fardihii uu ku gulfi jiray ay ka cawdaanba isaga oo aan is ogayn ayuu dhaafay xilligii barbaafnimada raggii ay iskuguga dhasheenay dhammaan wada guursade qaarkoodna carruuro kala baha ayayba leeyihiin isaguse dirirta gumaysiga mooye dumar iyo haayadoodba ma hayo ingiriiska sidee baa dalka looga edyaa weeye hamigiisu kolkuu hawl adag soo ebyaba tu ka daran baa loo diraa hawlaarsan iyo guddoon waxaan ahaynna afkiisu maro dharaaraha ka mid a xilligii ay daraawiisha cududda sheegatay oo dhul baaxad weyn lihi uu gacantooda galay ayaa ismaaciil iyo rag uu wata wuxuu sayidku u diray howlgal ciidan oo u baahnaa in iskumar degdeg iyo qarsoodiba lagu fuliyo waxay maqnaadaanba guultii laga filaaya ka badan iyo gacmo buuxa ayay la soo noqdeen warkoodii baa ka soo horreeyee sayidkii oo wixii ay dhigeen si weyn uga dharagsan ayaa ismaaciil oo markaas soo istaagay gudaha daartii faraad loogu soo geliyey dabadeedna markuu inta si wacan ugu warramay in la fasaxa
waxa uu sugaayo ayaa sayidku ku yidhi maandhow xilama leedahay. ismaaciil oo su-aashu sikadiisa ugu soo dhacday ayaa ku jawaabay maya sayidii. markaas buu yidhi maandhow waan kuu duceeyey, gabar baanna ku siiyey, berrina waa lagu meherinayaa. sidaas ayuu ismaaciil ku guursaday faadumo dhoore oo sida magaceeda ka muuqata aanu sayid maxamed dhalin, walaashiina ahayn. dhaqankii xarunta ka jiray ayaase u oggolaanaya nin kastaaba ha dhale gabdhaha daraawiisheed inuu bixin karo oo sida aabbayaashood uu isagu u guurin karo. hebel sayidka ayaa bixiyey waxay gabadha iyo qoyska dhalayba u ahayd ammaan dheeraad ah. yarad, aqal, mariinkii gabadha, xoolo qoys lagu noqdo, intaba sayidka ayaa ka xigsadayoo dhibaha dhaqaale ee raggu guurka ka maro faadumo guurkeedii ismaaciil midha kama marin. hase ahaatee guur kadib siduu raggu reerkooda ugu xasilo isagu uguma xasilin. habkii hore ee noloshiisa wax qumani iskama bedelin. hadday faadumo la ahayd sida ragga kale inuu waaberigiina xoolaha iskinka aan la dibadbaxo, fiidkiina uu la soo hoydo, way ku gabsanayd. markaas baa haddiiba gabadhii walaac ku beerma. nin xun ma aha, imana nacbee muxuu iigu hakan la'yahay ayay keligeed in badan isweydiisa. waa runteedo markii uu la joogo weji furan bay ku qabtaa, wuuna koolkooliyaayo iyaga oo aan wax badanba wada joogin waa kii faadumo xabado ula baxay. bilo kolkii uu maqnaadaba garab buu carraabo ku yimaadaa, habeen ama laba kolkii uu hoydana waa ka jarmaadaa ama ka boqolaa. marmar ayuuba ka bil maqnaadaa, kolkolna 2 ilaa 3 sano ayayba muddadu gaadhaa. markii uu yimaado inay aragto un mooye dhaqankiisaasu ma ahayn wax ay ka caban karto. waxay og tahay inay ceeboobayso haddiiba la maqlo maqnaanshaha ninkeeda iyada oo ka hifanaysa. waxaa lagu xaman lahaa nin jacayl iyo dirirta gumaysiga ee loo wada heelan yahay inay iyada fududahay. waxay sidaas ahaataba galabtii dambe ayay daraawiish aqalkeeda meel aan ka fogeyn isku warsanaysa. waxay faadumo ka ogaatay wax yar ka hor inuu ismaaciil xarunta soo galay oo daartii falaad uu sayidka la joogo. haddiiba waxaa ku soo dhacday su-aal markii dambe la siloonaatay oo ahayd oo hadduuba taleex soo gaaray muxuu reerkiisa ugu soo hormari waaye. waa su-aal ay ku gabsanayd. maxaa yeelay dhaqanka daraawiisheed kuma jirin ammaanduule soo galay inuu aqaladiisa ku hormaro. waxaa xeer ahayd inta aan cid kale loo warramin in horta sayidka loo tago, isagana la siiyo kolba wixii war ah oo ninka soo galay uu cadowga iyo cawaankiisba ka sido. ismaaciilna wuxuu ahaa nin daraawiish ku barbaaray oo hiddaheeda yaqaani sidii ku habbooneed ayuu yeelay markii uu falaad balleeyey. faadumo iyadu kabil waa gaari laga maqnaayee qalqaalo degdega ayay gashay. ilaxidkii uu seexan lahaa iyo ardaagii uu ku cawaysibi lahaaba way u saxartirtay. kaydkii ay u dhigtayna way soo dhowaysatay. cabbaar kadib iyada oo weynaalis cusub ardaaga ugu filinaysa ayay xagga qorraxdhaca waxay ka bidhaansatay nin faras ku jooga oo dhinaceeda ku soo socda. sidii inan aan qaangaaninoo aragtay nin loogu sheegay in la siin doono intay u xishootay ayay aqalkii daraq tiri. isla markiibana waxay maqashay sharqan ay filanaysay. waa ismaaciil oo ardaaga gadaalkiisa inta faraskiisii looshana kaga degay, 2 lugood dhulka la helay, iyo waryaa reerka jooga oo ahayd su-aal ay iyana u tooghaysay. annagaa joognay waa qofma iyo waxay isku dartay iyada oo tallaabo deggan dibadda ugu soo baxday. indhaha ayaa la isku dhuftay. isnabdaalin guud mooye markaan oo kale hadal kale ma jiro. isgacanqaad isaga warkiisa daa. labada in midba midka kale hor taagan yahay waa ku faraxsan yahay. lase muujin maayo oo waa wax hiddihii la dhowri jiray aan meelna ku lahayn. koob shaaha isaga oo inta cabbay weynaalistii isku kala bixiyey ayaa waxaa la soo joogsaday nin geeya ku jooga oo sayidka farriin ka wada. ismaaciil bal ii soo joogsa ayuu yidhi isaga oo aan neef dhegin. markuu u sheegay in sayidku u wacaayana ismaaciil wax kale ma odhanna wuxuu ninkii weydiiyey, ikhwaanow halkee baad u malayn in la ii diri doono? dambaarwadihii baa ku jawaabay, la iima sheegin, waxaase la hadalhayay ciidan aad waayeel ka tahay, aniguna aan ku jiro oo daraawiishta beledweyne lagu xoojinayo. sow ma aad maqal inuu talyaani banaadir ciidama ka keenay kadibna ay daraawiishi buulo birdarra kaga laysay? maya ma uu maqal. maantuuba burco iyo beel ka soo galay. webi iyo wararka hiiraan sidee bay ku soo gaari karayeen? waa sina. waan kaa daba imaanay sii soco intuu darwiishkii ku yidhi ayuu helheshay oo kabihii oo uu koldhow iska bixiyey haddana ilada. faadumo oo hortiisa ka muuqata ayuu milicsaday. war oo idin maqashay wayna og tahay hadalka sayidka hawraarsan mooye inuusan jawaab kale lahayn. wuxuu ku yidhaahdo isaga oo garan la
ayay iyadii u wardabixisay oo waddadii hadalka u iftiimisay. waxay ku canaanatay isaga oo bilo dhan ka maqnaa oo galabta uun carraabo ku yimid inuu haddiiba ka shaciirto oo isaga oo aan habeenba u hooyan uu reerkiisa ka tago. inuu afadiisa u caqli celiyo hawsha uu kaga maqan yahay milgaheedana u sheegaa sow kuma habboona. waxaaba suuragal ah inuu dumar kale kaga maqan yahay inay dareensan tahaye tuhunkaasna inuu iska darfiyaa sow lama gudboona. galabtaas ayuu gebiyey. gabayada caanka ka dhigay midkood ayuu tiriyey. wuxuu ahaa nin gora kafuulka ku badiyee isaga oo aan doondoonin welina halkiisii taagan ayuu tixdan soo socotaa faadumo u mariyey. wuxuu yidhi, faadumooy faraadkayganaan fiiro kaa badiye in faseexad loo wada hadlay gobi ku faydaaye fidmadeeda xaajada adaa faraya shaalleeye filan naag taqaan waa ibliis furuq alluukeeye fakalloonka iyo gaarka badan feeyigaan bidaye faranjaan ilaalaynayaa foos ka soo baxa ee fadadaan wareegaa sidii farow ugaareede ma furfuro habeenkii guntiga foora soo dhacay xeeryahan fadhaalaysan iyo foonka malabaysan fujaamadan la ii soo sido iyo faalac labankeeda fartaydaba anaan saarin baan fuuli looshana inaan adiga kaa fiigayo yaad igu filaysaaye furuq igu dile naag kalaan faraha saarayn foolkii astaadkaan ku helay fayda iyo khayre faataxa markuu ii maro yaan farax dhaqaaqaaye ma fakriyo shareecada ninkii faraqa haystay. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka dhegaystayaal haddii aan la waayin waxaa erga walba hormari jiray gabyacaana iyada oo la rumaysnaa xaqa ay ku raad joogaan in qolada ka haysa uu aftahamadiisa kaga soo dhirindhirin karo. maanseyahanadii waaweynaa ee ergeeyey gabayada laba ilaawaanka ahna hawshoodii ku waariyey waxaa ka mid ahaa cali dhuuxoo in doora oo maansadiisa ay soomaalidu dhab u taqaan sidaa darteedna ka deeqtoon inaan halkan waayihiisii idinkugu faahfaahiyo. muxuu haddaba cali dhuux ka ergeeyey? goorma ayay ahayd gabaygii oo arrinta ka mariyeyse kumuu ahaa? hor iyo horaanba goortu waxay ku aadan tahay sannadihii u dhexeeyey 1920 ilaa 1930. waa daraawiishtii sayid maxamed xilligii ay ku jabtay gacmaha gumaysigii ingiriiska iyo soomaalidii la jaalka ahayd ee uu askarta ka dhigin jiray. dil iyo dhacba waa saraakiishii gumaysigu xilligii ay xalaaleeyeen dibindaabyada ciddii ururkaa beri ka tirsanayd, ciddii jeer garabka u noqotay iyo tii loo malaynayay inay weli niyadda ku hayso intaba. ceeshooda xilligii la sumeeyeyoo waa goodiga nugaaleed xilligii inta gumaysigu ku soo fiday uu ka sameeyey maamuladii degdega ahaa ee si loo qabjabiyo geyigii lahantay iyo uunkii ku noolaaba gacanta birta ah ee aan sharciga cuskanayn lagu dhaqi jiray. si kale kuma garatide waa ismaaciil mire xilligii uu marin jiray gabaygiisii caanka noqday ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado. sanad haddaba ka mid a sannadaha dhibta badnaa ayaa waxaa been isku urursatay degmo jabkii daraawiisheed ka soo doogtay oo markaa tacab xoolaad oo hor leh ku hawlanayd. maalintii dambe iyaga oo baraadla ayaa waxaa ku soo dheeraday koox dabata ah taasoo ku guulaysatay inay ka qaado geel tiro yar tuldo caafimaad ahaan aan fayoobayn xoolo oo idinna ay iyagaa ka lahaayeen. cudud ahaan kooxdaas iyada ahi geelaas inay haysataa suuragal uma ahayn. sidaa darteed bay ula galeen reere ay filayeen inay ku dhexaysan karaan, degaan ahaanna ay markoodii horeba wadataal ahaayeen. cali dhuux oo ka mid ahaa degmadaa la dhacay ayaa geelaa ka ergeeyey. hase ahaatee kooxdii qaaday ma uu abbaarine wuxuu dul fadhiistay kuwii magangeliyey ee ay sarsarkooda ku jireen. markaas bay isaga iyo raggii la socday waxay odayadii reeraha u soo bandhigeen gartoodii oo daldalool oo idin ay ka dhowreen. nasiib darro lagama hoos qaadina warkoodii waa la fududaysta. waxaa lagu yidhi, nimanka aad leedihiin xoolay naga soo dhaceen waannu garanaynaa, iyaga oo geela wata ayayna mareen. in dhaweydse isku aanu ahayn. kolka erga yahay hadda iska noqda oo wuxuun baannu ka soo celine annaga naga warsuga. jawaabtaasi cali dhuux iyo raggiisii kama ay daadegin. cayaayir hadal inay tahay ayay u qaateen. maxaa yeelay waxay ogaayeen geelu inuu dhow yahay, inaan weli la qaydaayeen geelu inuu dhow yahay, in la saanyado loo ballansan yahay, isla markaasna kooxdii soo qaaday iyo kuwii loola soo galay labaduba ka saami qaadashadiisa ay u sinaan doonaan.
weligeed ba sidaas oo kale markay xaajadu u soo oodanto ayaa aftahamada ergada loo baahan jiray soo inuu gabyaa cali dhuux lama soo gudboonaan maalintaas buu geedkii shirkooda inta ka dhex istaagay wuxuu tiriyey gabay garnaqsi ahoo 14 qodob ka kooban wuxuu ku bilaabay qodobo ay ka mid yihiin bal horta ka talinta arrintooda inaan dhallinyarada lagu sii daynay waayeelka loo daayo marka labaadna tan iyo gugii gobaysane ee uu isagu dhashay inaanay jirin wax godob ah oo labadooda qolo ay kala galeen marka saddexaadna in haddii ay wax ku sheegtaan uu diyaar leeyahay goobta la joogo inuu ku gudo marka afraadna inaysan iyagu geela ka soo qaadine loola soo galay sidaa darteedna aysan u ekayn eeddiisa inay iyagu dhabarka u ritaan wuxuu yidhi 14 haloo wada gudha'a geela igu siiya ninkuu yidhi garaadkiiba ayuu waa gafaataroe garku hadduusan marin ee bahay gebi ka sii qaadiye waa yeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxshaa tii garraadda ahee halgabaday nin uunbaa gartee geela igu siiya teer iyo gobaysane anoo gabanahoo wiila labadeenna qoloba ayan gelin xaajo godobeede iyadana ha garan waayine geela igu siiya gati eebo iyo daab ablay gudubna waaqaane cara guura oo gudimo noo sheegta guddi baan u saaraya wixii geedka iga raaca inaan galabta gegidaa dhigaa igu gar weeyaane gaagisa waa xun tahay xaajadii garasho weydaaye waxba haddaydinan igu gudbayn geela igu siiya gablamooyinoo ma aydun dhicin idinku goodwiile tuulkugu gabraaranahaya ya kuula soo galaya iyadana ha garan waayine geela igu siiya taasi kuma fille weli waa inuu dabeebtaa ragga uu la hadlaayo ee uu geela ka doonayo waa inuu u qaraabo sheegtaa waa reer abtigiise waa inuu xusuustooda ku soo celiyaa inay iyagu dhaleenoo ashkira oo hooyadiisihi ay guryahooda ka soo jeedo hadday taas ugu soo loodsami waayaanna waa inuu ku cabsi geliyaa isaga ma ahee inay jiraan 4 rag ahoo isla reerahooda ku abtirsada hooyadiisna ay isaga dabadii dhashay waa rag degaankoodu dhow yahay lana sheegay inay carab wada digsiisay gaar ahaan maxamed cumaroo weer caddi madaxa ugu xiran yahay tan iyo maalintuu maqlay walaalkii cali dhuux oo dhacani inuu degmada gees kaga jiro mar kale waa inuu dareenkooda ku ridaa haddii halahaas tirada yar tayadana xun ay haysadkooda ku adkaystaan inay eedi doonaanoo hareerada iyo horweynka xeryaha uga buuxa ay salfan doonaan mar kale waa inuu gartiisa ku xulfan doonaan mar kale waayahay haddaan la siinin inuu tirin doono gabay colaadeedkii lagu yaqiin dabadeedna ay gooba ba'anay xigi doon yaqiin dabadeedna ay gooba ba'anay xigi doon yaqiin dabadeedna ay gooba ba'anay xigi doon ku badbaadi karin wuxuu yidhi gaadh iyo barkimo reerahay gogoshu ii tiiranimay gabadhi keentaan ee geela igu siiya 4 ina guryaad oo gudboon yaan gelbinayaaye geeddayna igu raacayaan guluf colaadeede geelaashihii maxamed cumar xiray gambool weyne intaanan gaarin gowgaa ilaal geela iyo celiya halaha golaha muruxsan ee gindigu laastay nimanbaabay guuye u yihiin gaajanuu qabaye goolka iyo qaalmaha golshiya rimada gawdiidda sidii galow haruur bay u guran guuto cayleeye iyadana ha garan waayinee geela igu siiya guboo kale haddii aan tirsoo qoladii guubaabsho nimay guuli raacdaba wallaa laysu gelayaaye gudubtayda lama haysan karo maalin gelinkeede iyadana ha garan waayinee gelinkeede iyadana haiyo guyaal godobi kaa raagto mar unbay dakana soo gashaa gacantii oodnayde iyadana ha garan waayine geela igu siiya iyadana ha garan sidii galow haruur bay u guran guuto cayleeye iyadana ha garan waayine geela igu siiya guboo kale haddii aan tirsoo qoladii guubaabsho nimay guuli raacdaba wallaa laysu gelayaaye gudubtayda lama haysan karo maalin gelinkeede iyadana ha garan waayine geela igu siiya inkastoo guyaal iyo guyaal godobi kaa raagto mar unbay dakana soo gashaa gacantii oodnayde iyadana ha garan waayine geela igu siiya dacwigaas ku larayaa 2 qodob oo gundhig uga dhigay midi waa inuu ka soo jeedo reere aan laga maarmi karin oo abaalkii loo galo beri ka maalin gudi kara taasoo ay ergadoodu ku mudan tahay in loo tixgeliyo midda kale in loo sheego war cad oo ku saabsan in geela ay doonayaan isla maalintaa gacanta loo soo geliyo amaba si caddaana loogu diido wuxuu diidayaa labaclabacda iyo waagii baryaba naga war dhowra in lagu maaweeliyo markaasuu yidhi guntaan ahay lagama maarmi karo maalin gelinkeeda galab
qura abaalkan gudaa waa idin gaaraaye iyadana ha garan waayinee geela igu siiya gari kama malaasnaan u fidhi geella ii noqo intaad gaar isugu joogsataan gobo'da ii sheega haddii geela la isiin lahaa galabta hay raaco haddii kalese caawaba guda godobayeelkeeda sida la sheegay cali dhuux geelii dhammaantii waa loo keenay wuxuuna kula soo noqday reerihoodii hase ahaatee 14 qodob ee gabaygu ka koobnaa 11 ka mida weeye inta aan idiin soo gudbiyey waana wareegaashii aanu la kulannay intii ay ka hayeen dhegaysta